bani aadamku waxyaabaha uu ku horumaro qaar ka mid ah oo aynu ka soo dheeganayno inaynu ka soo qaadanayno diinteenna islaamka annaasu kulluhum yadlubuuna annajaax fi hadihi dunya waxyaaba aada loo hadalhayo waxaa ka mid a hebel muxuu horumar gaadhay waddankaasi muxuu horumar gaadhay qofkaa maxaa u kordhay marka maa hiya asbaabu najaax waxyaabahu qofku ku horumari karo hadduu qofkii horumarana ummaddiina way horumaraysaa maxaa ka mid a innagoo ku eegayna qiyaasteenna diiniga ugu horeyn waa taqwa allahi tacaala fa hiya khayru zaad alla ka cabsiga qofku haddaanu alla ka cabsi lahayn horumar ma jiro waayo naftiisana uma tudhayo waddanka cid kale toona marka cabsida ilaahay markay jirto wax waliba quruxsanaadaan ballanna ilaahay waxa uu ku qaaday qofku marka uu cabsado ee ilaahay xaggiisa uu iska eegaya isha ilaahay uu iska dhisayo inuu faraj siiyo wax kasta waxa uu wado cidhiidhiga ka hor yimaada iyo caqabadda uu ka hor qaadaa in tattaqu llaha yajcal lakum furqaana waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja waman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusran waa ballanqaadiyo arrinkaan u fududaynaya faraj baan siinayaa taa macnaheedu waxa weeyaan horumarkiisii ma soo oodmayo waxaa ka mid a wasaa'ilka cadamu lyas waalqunuud qofku inaanu quusanin ee u ogaado quraanjaduba markay geedkaa korayso way soo dhacdaa way soo dhacdaa way soo dhacdaa ilaahay natiijo wanaagsan ka gaadho marka dambe ay halkii ay doonayso kor u baxdo marka haddaad dembi gasho iyo haddaad diiqad gasho iyo haddii duruuf adagi kugu timaado mar walba inaanu qofkii naxariista ilaahay ka quusanin khayrka adduunya ka aakhirada qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah qur-aanku wuxuu ina barayaa inaanay quustu ahayn dhaqanka dadka shahaadanaya islaamka waxaa ka mid a waxyaabahaas kahratu tafaa'ul ilxasan saadaasha wanaagsan oo sheegaysa qofku inuu ilaahay malo wanaagsan ka malaynayo waa ilaahay aad ku xidhantood hoos taagantay subxaana wa tacaala mar walba wixii dhaqdhaqaaqa oo inaad xagga fiican saadaasha ka martaa oo tashaa'um baa cagsi u ah baasaysi iyo balaayaysi iyo warwar iyo walaac waxaasu iska ilaalinaya qof isagoo dabcan asbaabta qaadanaya feejignaanta iyo xadarka asxaabta ka mida baa nabiga wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam dadku waxyaabaha qaarkood way ka shakiyaan way ka waswaasaan way ka warwaraan markaa nebigu waxau ihi calayhi salaatu wasalaam dalika shayun yajiduunahu fii suduurihim falaa yasudannahum xadiidkii muslim waxaas waa dareen iyo waswaasay naftooda ka helayaane tafaa'ulka wanaagsan ha ka raacaanoo sida khayrka leh ha ku fikiraanoo ha u socdaan asbaabta waxaa ka mid a idaa najaxta fii amrin fa iyaaka waalquruur markaad horumar gaadho waxaad ku hamiyeysa aada hesho ha isla fagadh o dhan awood ha isbidin iyo itaal iyo arrin anaa kan qabtay oo anaa kan sameeyey oo anaa kan sameeyey inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii sidii qaaruun oo kale laakiin ilaahay u celi subxaanahu wa tacaala hada min fadli rabbi liyabluwanii ashkuru am akfur sidaa saalixiintu odhan jireen nebiga ambiyada ka mida u lahaa way dheeraad ilahay baa kana inoo hirgeliyay ilahay baa waxaana horumar kanayna siiyey tawaaducaana sidaa ku jira uu nebigu inoo dardaarmaya calayhi salaatu wasalaam ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa taftakhiruu aw yaftakhira axadu calaa axad ilaahay waxyi wuxuu igu sheegay dadii ow isdhuldhig oo ha kibrin oo ha aftaagina ida intasarta cala alkhusuumi falaa tashmit waxaa ka mid a wasaa'ilka dadka wax idin dhex maraan ama doodaysaan ama waxyaaba isku qabataan haddaad ka guulaysato ha ku wiirsan walaman sabara wagafara ina dalika la min casmi lumuur ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sabirka iyo dhaafidda ayuu ina faray nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusay oo uu lahaa qofka walaalkaaya ha ku wiirsan ama dhibaato ama duruufo ay ku dhacdo waxaa laga yaabaa dhibkaa intuu ilaahay ka qaaday inuu si adiga kugu wareejiyo wa min asbaabi الnajaax waxaa ka mid a ikhtar sadiiqa saalixan markaad doonayso horumarka qofka ama ummadda ama qoyska ama caruurta saaxiib wanaagsan in la samaysto الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل نبي طلدا يدر دارن كائن النسية صلى الله عليه وسلم قفك الدين تساحيب كيبو هايستا قفك هايسكا قاعد والله صاحب أيه
iyaaka walxasad waxyaabaha sacaadada iyo najaaxa iyo horumarka kaa lumiya waxaa ka mid ah dadka wuxuu ilaahay siiyey inaad xaasido waxaad qabsan lahaydba wuu kaa mashquulayaa ciil iyo cadhana wuu kugu abuurayaa abi hurayra rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu la hadlayo isagoo ummadoo dhan talada siinaya wuxu uhi yaa abaa hurayra kun warican takun acbad annaas wa kun qanican takun ashkara annaas xalaal miirashada badi dadkaad ugu cibaado badan ayaad uga cibaado badan doonta qanaacadana ogow inaad dadka waxooda sii egeegina wuxuu ilaahay ku siiya aad ku kaaftoontood miyirsatood ku mahadnoqdo dadkaad ugu shukri badan doonta sidoo kale talooyinkaa waxaa ka mid a laa tukhaasim lianlaa tumaziqa asadaaqa muranka iyo asraarka iyo dooda iyo jaafaajiriqa hadduu qofku badiyo meeshuisa soo taagaba waxyaabaha keena waxa weeye danihiisa iyo horumarkiisa inuu ka mashquulo dadkana ay isku seegaan mar haddaan ahayn waxaas wax natiijo laga gaadhayo ama xigmadi ku jirto arrintaa ha caadaysanin ehel iyo asxaab badan bay kaa luminaysa waxaa asbaabtaas ka mid ah inuu qofku ilaahay weydiisto subxaanahu wa tacaala cilmi naafica oo cilmigu waxyaabaha najaaxa keeno weye ummaddu inay cilmiga ilaahay barida cilmiga ku dadaasho cilmigii naaficahna ilaahay baryaan ka diinta iyo ka dunyadaba markay aqooni jirto waa asbaabu najaax diintaad ka horumaraysaa dunyadaad ka horumaraysaa qofku wax badan oo cidhiidhi ku noqon lahaa ama uu ka warwari lahaa ama nolosha ka xumayn lahaa ayuu ka nasanaya waayo qofka cilmiga iftiin buu dhex socdaa iyo waddo furan qofka jaahilka ahina waxaa laga yaabaa hadduu cibaadaysanayo shaki badan baa haysta waxaase armu ansixi waayo waxaase armusaa noqda marka aqoontu waa muhiim laakiin waa inay naafictay haddii kale khasaaray kuu keenaysa waqul rabbi zidnii cilma ilaahay baa nabiga yidhi rabbi cilmi weydiiso nabiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu baryo waxa uu lahaa allahuma anfacnii bima callamtanii wacallimnii cilma yanfacunii cilmi anfaca ilaahay usi waanu ka magan gelaya cilmi aan waxba anfacayn waa min cilmi laa yanfac waxyaabahaas asbaabu najaax waxaa ka mid a an tuscida man xawlak inaad intaad kari karayso u raaxayso ood u nafiso ood u dabciso dadka kaa agdhow dadka kuu shaqaynaya dadka asxaabtaada dadka ehelka ah caruurta oorida ka farxintaad ka farxisa macnaheedu waxa weye aday kaa farxinaysa waa iscaadu man xawlaka min alasxaabi walaqaarib waa inaad iyaga dhibto ama cadaabto ama gaajaysiiso ama duruufada ku abuurto sacaado ku heli maysa iyo xataa kelimaadkii faacnaa iyo mucaamaladii wanaagsanayd wacaashiruuhuna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqmu buu ilaahay yidhi waxsiinta wax ka caamsan weeye laa yakfuruk mu'minun mu'mina markuu ninku xaaska markuu nebigu la hadlaya calayhi salaatu wasalaam waliba ninka wuxuu leeyahay ninka mu'minkii walaashii u caayin xaaska u ah waquluu linnaasi xusna laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqa akhaaka biwajhin daliiq weji wanaagsanba walaalkaa kula kulano waxaa ka mid a waxyaabahaas ku keenaya sacaadada laa tufatish cuyuuba alaakhariin ama najaaxa iyo horumarka ummaddu ay ku gaari karaysa ceebaynta in la iska daayo qofku aanu dadka ceebahooda dabagelin qofku haddii uu dadka ceebahooda galo adhowta waxaa dhici doonta in warkii la ogaado kadibna isagii wixii dib ay ugu soo noqdaan maxaa kuu geeya maxaad u tidhi maxaad ku saxdaa maxaad ku xalmarisaa waxaasuu hadhow ka warwaraya idan inuu afkiisa ummadda ka haysto si aan isagana loo dhibin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu sheegay xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa man qaala halaka nnaasu fa huwa ahlakum qofka idhaa dadku way wada halaagsameen kuwani waa meel baa soo baabaaday ilaahay baa halaagaya dad xun weeye isagaaba u xun buu nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu sii horeeyaa kamuu hadhin waxaa ka mid a waxyaabaha sacaadada qofka muuminka ama ummadda islaamku way qaadataa inay wax waayaan waxyaabo badanoo kale laakiin dulliga inaanay aqbalin walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin ilaahay rasuulkiisu cisi bay leeyihiin
marka qofka muuminka iscaadkiisa iyo waxa ka mid ah najaax inuu helo in had iyo jeer wixii dulli ka dhigaya aanu aqbalin meesha uu ku duloobaya aanu tegin cidda duleynaysa la saaxiibin waxa ka mid ah sacaadadaada waxyaabaha ama najaaxa aad ku gaari karaysa inaad naftaada xisaabiso yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat liqad ilaahay baa ina faraya subxaana wa tacaala intaan aroorta la gaadhin oo aakhiro ah qof waliba wixii uu sameeyey ha sii eega buu ilaahay leeyahy waltandur nafsun maa qadamat liqad way nagu yarta inaad tidhaahda maxaa kaa dhacay sidaad maalka u xisaabiso marka xisaab xidhka sanadki inaad tidhaahdo bal camalkii sanadka xisaab xidh ku samee maxaa kuu kordhay cilmigaaga cibaadadaada khayrka horumarka sidoo kale habeenkii iyo maalintii aada xisaabtanto xikmaddaynu ka dhaxallay cumar bnu khadaab almulham khayrka ilaahay uu ku ilhaaminaya baa waxay ahayd naftiina xisaabiya intaan ilaahay idin xisaabin camalkiina sii miisaama intaan ilaahay idin miisaamin watajahasuu liyowmin tucraduuna fiih laa takfaa minkum khaafiya una diyaar garooba maalin ilaahay la idin horgeyn doono waxba aanu ka qarsoomayn marka wixii kale waynu xisaabinaa dadka waxaad xisaabinaysaa duruufahooda arrimahooda ceebahooda dhaqaalaha waxaasoo dhan laakiin camalkeenna intaynu xisaabinaa way yarta ee dib ugu noqoto wixii kuu kordhiya wixii kaa dhacay dadka saalixiintu waxay odhan jireen qofka maalinkiisani shalaydiisii uu la mid yahay waa qof lagu kediyey oo shaydaan uu ku kediyey mar haddaan waxba u kordhin haddii maantadiisani shalay ee ka dartayna nacdal baabu mutaysta ile hoos buu daadegay